kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan baahinteena aroornimo qaybtanna waxaynu ku eegi doonaa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo tallaabo weyn oo saameyn adag ku yeelan karta Somaliland imikan qorsheynaysa muxuu yahay tallaabadan dowladdu ay qorsheynayso sidee ay suurtogal ku tahay madaba in dowladda Soomaaliya go'aankan ay noqon doonto mid ay ciqaab adag uga dhigayso Somaliland wararkii ugu dambeysay ee arintan ku qotoma iyo go'aano xalay laga soo saaray Muqdisho ayaan rabaa inaan muuqaalkan idin kula wadaago wax kale oo aan qaybtan ku eegi doonaa waxa lagu guul daraystay isu soo dhawaanshiyaha madaxweynaha waqooyi bari ee Soomaaliya iyo ku xigeenkiisa oo khilaaf adag uu ka dhaxeeyo kulan la doonayay in dhinacyadan lagu dhadhaxaadiyo oo la sacaanood fashil uu ku soo ilaaday wararkii ugu dambeeyay xubnaha halkaasi u jooga dhadhaxaadintan oo gebi ahaanba quus taagan dibna ugu soo laabanaya deegaanadii ay ka ambabaxeen ayaynu halkan ku eegi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal subax wanaagsan intaynu ku guda jirno baahinteena wixii warar ah ee degdeg ah ee soo kordha iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ayaynu halkan idinku soo koobi doonaa soo dhawaada saaxiibayaal aynu ku bilaawno waxa ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo si weyn uga careysan tallaabooyinkii isdaba joog ahayd ee madaxweynaha xukuumadda Somaliland Cabdiraxmaan Cirro xubno kamid ah golihiisa wasiirada ay kaga baxeen Hargeysa socdaal qarsoodi ah oo ay ku tageen Talaabiib isla markaana halka mararka qaarkoodna ay magaalada Hargeysa ay toos u imaanayaan xubno Israa'iil ka socda oo sirdoon iyo xubno kale oo aan la ogeyn waxa ay yihiin oo dowladda federaalka Soomaaliya xogaha iyo macluumaadka dhabta ah ay gabi ahaanba ku guul daraysatay inay helaan hase ahaatee kulan xalay ka qabsoomay Muqdisho waxa lagu go'aamiyay in si degdeg ah guud ahaan xayiraad loogu soo rogo garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa xogtu waxay tilmaamaysaa in la doonayo in dhammaan duulimaadyada u soconaya Hargeysa ay soo maraan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si hubin loogu sameeyo kadibna ay kaga sii gudbaan dhinaca magaalada Hargeysa ee xaruntu u ah Somaliland waxa gabi ahaanba la joojin doonaa isu socodkii duulimaadyadii tooska ahaa ee ay Hargeysa ku imaan jireen diyaaradaha caalamiga iyagoo aysan soo marin magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya tallaabadan waxay saameyn adag ku yeelan doontaa hoggaanka iyo madaxda Somaliland dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaana doonayso in awood iyo si qasab ah arintan ay ku hirgeliso waxaase la rumaysan yahay in tallaabadan dowladda Soomaaliya ay kaga gon leedahay in jawaab degdeg ah ay kaga dhigto fashilkii xoogganaa ee ay kala kulantay helidda xogaha iyo macluumaadka la xiriira dhaqdhaqaaqa garoonka diyaaradaha Cigaal International Airport dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in si la mid ahna ay dadaal badan ku bixinayso helista xogta dhabta ah ee dhaqdhaqaaqa garoonkaasi oo aysan dowladda Soomaaliya fasax aysan siinin diyaaradaha aysan ku degi doonin garoonka Cigaal in la hubiyo oo ay Muqdisho soo maraan diyaaradaha u socda Hargeysa waxa la tilmaamayaa inay tahay tallaabo dhabarjab weyn ku ah xukuumadda Somaliland waxayna saameynaysaa dhammaan madaxda Somaliland iyo xubnaheeda kale ee labada gole ka tirsan waxaana xogtu ay tilmaamaysaa in tallaabadan haddii la hirgeliyo ay Somaliland ku adkaan doonto waddo kale oo ay isaga fardaamin karto in ay u safraan deegaanadooda waxaase jiri doonta in xubnaha u safraya dhinaca dalka dibadiisa kana baxaya deegaanada Somaliland ay imaanayaan Muqdisho kadibna halkan ay ka ambabaxayaan halka kuwa u socda Hargeysana Muqdisho soo mari doonaan waase tallaabo la sheegay in dowladda Soomaaliya imikan ay doonayso inay si degdeg ah ay u qaado oo ugu dambeyn la go'aamiyay waxaana dowladda federaalka ah ee Soomaaliya si la mid ahna ay doonaysaa in ay dejiso qorshe iyo qidad kasta oo ay ku ogaan karto xogta iyo macluumaadka ugu dambeeya ee dhaqdhaqaaqa garoonkaasi si looga hortago tallaabooyin waaweyn oo ay Israa'iil ka fulinayso deegaanada Somaliland saacadii ugu dambeysay Israa'iil ayaa diyaarado nooca dagaalka ah iyo kuwa xamuulka qaada u soo dirtay Hargeysa kuwaas oo la tilmaamay in hub ay geeyeen qaarkood waxaase ay gabi ahaanba ay qadka ka saareen isgaarsiintii tooska ahayd ee ku xiriir lahayd dhinaca maamulka hawada Soomaaliya waxaana dowladdu ay doonaysaa in halkaasi ay ka hirgeliso isla markaana dhaqdhaqaaqa halka ay la socon doonaan diyaarado nooca aan duuliyaha lahayn ee droneska ah oo laga howlgelinayo dhinaca garoonka Cigaal International Airport oo keeni doona xogta dhabta ah iyo xaqiiqada la xiriirta hase ahaatee dowladdu lama oga tallaabada dhabta ah ay u qaadayso haddii ay hesho macluumaad ama xogta diyaarado halka ka degay
waxaana aan la ogeyn nooca jawaab ay dowladda Soomaaliya bixin doonto. Dowladdu waxay dhowr jeer hore dacwad ka dhan ah diyaaradaha sida sharci darrada ah ku soo gala hawada Soomaaliya ay u gudbisay hay'adda caalamiga ah ee hawada isla markaana maamusha oo ay u gudbiyeen dacwadan. hase ahaatee weli ma jirto jawaab dhab ah oo lagu qanci karo oo dowladda Soomaaliya ka heshay hay'addaasi. markan haddii aynu eegnana magaalada Laascaanood ee xarunta u ah dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee waqooyi bari waxaa ka soconaya dadaallo la doonayo in la isu soo dhaweeyo madaxweynaha maamulkaas iyo ku-xigeenkiisa oo khilaaf noociisii ugu adkaa uu soo kala dhexgalay. waxaa la sheegayaa in halkaasi ay dadaaladan waawaanta ah shalay ilaa iyo xalay xilli dambe ay ka wadeen isla markaana guul daraysteen madaxweynaha maamulka waqooyi bari iyo ku-xigeenkiisa la isu soo dhaweyn lahaa oo uu horkacayo madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo magaaladaasi u jooga in dhexaadinta labadan mas'uul laga mid dhaliyo xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka tagay deegaanada Puntland kuwa waqooyi bari ee ku sugan Laascaanood iyo xubno uu ka mid yahay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed iyo xubno kale oo xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya. waxaa khilaafka labadan mas'uul uu ka dhashay caleemasaar intii ay socotay munaasabadii caleemasaarka ahayd ee lagu caleemasaarayay Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaasi. waxaa la sheegay in Cabdirashiid Abwaan uu ka baxay madal ay ku wada sugnaayeen Firdhiye isaga iyo xubnaha dhexaadinta wada kadib markii uu ku qanci waayay dhaqdhaqaaqa halka ka soconaya oo uu sheegay in isaga uu tashanayo go'aano adagna uu qaadan doono. warar saacadii ugu dambeysay soo faxay ayaa sheegaya in xubnahan ay qoys taagan yihiin ayna doonayaan in dib ay ugu laabtaan deegaanadoodii maadaama howlo muhiim ah iyo shaqooyin ay ka soo tageen xilligan aysan suurtagal lahayn inay ku sii sugnaadaan magaaladaasi. Cabdirashiid Abwaan isla shalay waxa uu ka baxay madal qada ahayd oo uu ku sugnaa Firdhiye laguna casuumay isaga iyo dhammaan qeybaha kala duwan ee magaaladaasi ku sugan ee caleemasaarka u tagay. markii uu ogaaday in Firdhiye halka ku sugan yahay uu isaga soo baxay. waxaana dadaaladii ugu dambeeyay ee soconaya ay u muuqanayaan kuwo marba marka ka dambeysa fashil ku sii dhacaya. 5 bil wax ka yar ayay hogaanka maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya hayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyadoo aragtida siyaasadeed ee isku dhac ah ee labadooda ay inta badan xubnaha ku sugan halka ay dadaal ku bixinayaan inay isu soo dhaweeyaan isuna tanaasulaan dhinacyada. marka la eego Cabdiqaadir oo Cali Firdhiye ayaa waxa uu sheegay in garowshiga ka bixinayo wax kasta oo qalad ah uu ka tabanayo Cabdirashiid. hase ahaatee Cabdirashiid Abwaan ayaana sheegay in arrintan aysan sinaba suurtagal ku ahayn in xal degdeg ah laga gaaro ayna u baahan tahay in waqti badan la geliyo. waxayse u muuqataa in Cabdirashiid Abwaan uu tijaabinayo awoodiisa maamul heerka ay gaarsiisan tahay iyo saameynta uu ku dhex leeyahay maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya. weli ma jirto war rasmi ah oo dhinacyadan ka soo kala baxay. hase ahaatee dadaaladii ugu dambeeyay ee dhexaadinta ah ee fashilka ku dhow ayaase laga degayaa oo bulshada halka ku dhaqan iyo xubnaha kale ee isu xilqaamay dhexaadintan rajo badan ay ka qabeen markan waxay u muuqataa mid qoys ah. miyay suurtagal noqon kartaa in Cabdirashiid Abwaan xubnihii uu soo xushay xildhibaanada waqooyi bari uu dib ugu laabto deegaanadiisii? ma dhaba in ay suurtagal tahay in Cabdirashiid Abwaan dhinaca Somaliland uu goosto? wixii macluumaad ah ku soo kordha adiga ugu horeyn doono. saaxiib yaal nabadgelyo.